bani israa'iil ahaa ee 99 nafgooyey ee yidhi nin caalima oo mas'alo diiniya weydiiyey ii tilmaama nin raahiba ayaa loo tilmaamay. raahibku waa ninka caabidka cibaadada badan leh laakiin aqoontiisa axkaamtu ay yar tahay weeyaan. dadna markaas uu yimid oo wuxuu ku yidhi 99 naf baan gooyey toobad miyaan leehay? markaa buu yidhi may adigu toobad ma lihid. fakammala bihi 100 baa la yidhi boqolkiibuu isagii kaga dhigo qoortu ka gooyey isagii 100 buu kaga dhigay. haddana ninkii uu fadhiisan waayey wuxuu yidhi ila raadsada buu ila raadiyo ila ii doondoono ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobadda. markaas fadulla calaa caalimin nin caalima oo axkaamta yaqaana ayaa loo tilmaamay. laana caabid kasta caalim ma ahin baa la yidhi laakiin caalim kasta caabid uu noqon karaa. caalimkuna waa indhaha ummadda weeyaan. ninka caalimkaee faqiihe diinta yaqaana waa indhihii ummaddu ay wax ku arkaysay culummadu. caama hadday culummo weydo caamadaasi waa caamo indhabeeshay ogow. waxa maanta nolosha muslimiintu ay la qalabaagadinaysa waa caynkaa ee la kaca kufayno. laanna caamadu culummada kuma xidhnay, caamadu maanta siyaasiyiintay ku xidhan tahay. siyaasiguna ma aha mid indhihiisu ay shaqaynayaan oo qalbigiisa iyo maskaxdiisu ay furan tahay maaha. waa mid nolosha adduunyada u yaqaanay noloshii aakhirada ka madow isagana. lidaalika ninkaasi wuxuu raadsaday nin caalima laanna culummadu waa indhihii ummadda weeyaan. haddaad caalim aad cilaaqa la yeelato bal diintaada waxaad ku caabudaysaa si cad ilaahay ku caabudaysaa. balladh naxariis diintaadu waxay noqonaysaa diin waasicay noqon. deedna markaasaa nin caalimaad loo tilmaamay. caalimkiibuu u yimiday mas'alad buu weydiiyey. wuxuu ku yidhi 100 naf baan dilay toobad miyaan leehay? markaa buu yidhi haa toobad waad leedahay buu ku yidhi. toobadda iyo adiga cid ini dhex mari kartaa ma jirto. toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo rabbigii. 100 nafood haddaad dishay toobaddaada haddaad doona in laga aqbalo oo ay ansaxdo waxaa shuruuddeeda ka mid ah waddankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan oo macnaha dad xunxun baa ku nool. dadkaasi waa dad mar walba dhiigga daadinaya oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaane qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagane ka dhexbaxa buu ka yidhi mujtamacan. oo xaggee tegaysaa? mujtamac wanaagsan baad iyaa kuu tilmaamaya. dhulkaasaa tegaysaa dhul laydhaa meel heblaayo. dhulkaa dad wanaagsan baa ku nool oo ilaahay halkaa ku caabuda. dadkaasaad u tegi deedna ilaahay la caabud buu ku yidhi dadkaas. deedna way sidii buu yeelay ninkii. waddankii uu dhiigga uu ku galu dhagarta uu ku galay buu bedilay. waddankii uu u hijroonayay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisii dhexda ku qabato oo u dhintay. malaa'ikatulcadaab iyo malaa'ikaturaxma isku qabatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. innakuna sida qofka bini'aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo aan jidhkiisa maaragtaane kafanka iyo nacashka iyo qabriga aan ula diyaargaroobayno ayaa qofka maaragtaane ruuxdiisuna malaa'igta ayaa u imanaysa. hadduu ahluljanno yahayna malaa'ikaturaxma qaadaysa buu nebigu yidhi. hadduu ahlunaar yahayna malaa'ikatulcadaab baa qaadaysa. deedna labadii malag baa isku yimid oo qaar waxay leeyihiin waa ahlannaar. 100 naf buu qabaayo waa dhagarqabe ninkani naar baan u qaadanaa ruuxdiisa annakaa qaadayna. qoladii kale waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allaahi caza wajalla. ilaahay buu u soo noqdo uu toobad keene maaragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa. markaasaa malag suurad aadamiye leh ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala. deedna markaasaa malagii la yidhi waxaad matiraysaa dhulka uu dembiga ku galay iyo dhulku u hijroonayay qiyaas baa lagu yidhi. deedna markaasaa waxaa u batay dhulkuu u socday buu markaa ayuu u dhowaaday taaka intaa leeg baa la yidhi. wa fii riwaayatin riwaayad kale wuxuu nebigu yidhi ilaahay baa amar ku siiyey dhulkii dhulkuu u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa lala hadloo lagu yidhi addoonkaasi waa toobad keene u dhowow. deedna taaka intaa leeg buu u dhowaaday taaka intaa leeg. sidaasee markaa malaa'igtii naxariistu ay ku qaadeen oo ahlujanno ku noqdaan la yidhi. waa sharcun liman kaana qablanaa bay culummadu yidhaahdeen. ummadihii naga horreeyey toobaddooda in la aqbalo waxaa loo shardinayay inay mujtamaca ay ku dhex jiraan ee liita ee fasaadsan ee dhiigga daadinaya ee dagaalamaya inay dadku ka dhex baxaan oo mujtamac wanaagsan oo diin lo alla ka cabsile meeshay joogaan inay u hijroodaan ayaa maaragtaanay shareecadihii ummadaha hore ka mid ahayd.
ama innaka shareecadeenna toobadda culummadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa toobaddu markay addoonkiiyo ilaahiisa ka dhaxaysa waa 3 weeyaan. 3daa haddii lagaa helo toobaddaadu way ansaxaysaa, haddii mid lagaa waayo toobaddaadu ansixi mayso. ka koowaad waa kii culummadu waxay yidhahdeen dembiga aad ku jirtay waa inaad ka dhex baxdaa. ta labaadna maaragtaanay dembiga aad samaynaysay waa inaad casimiya go'aan aad la timaadaa inaad mar labaad dib dambe dembiga aanad ugu noqon. ta saddexaadna waa inaad markaad xasuusato dembiga aad samayn jirtay waa inaad ka qoomamaysaa ood ka nadamootaa. 3daa haddii qofka taa'ibka laga helo toobaddiisu way ansaxaysaa. 3daa ha shardi haddii mid uu ka maqan yahayna toobaddaadii waa naaqis weli weeyaan. haddii bani aadan xaqiisii meesha uu ku jirana shardi afraad bay culummadu sheegeenoo waxay yidhaahdeen waa inuu qofku maaragtaane xaqii bani aadanee lagu lahaa waa inuu qofka wixiisa iskaga celiye weeyaan, ama waa inuu cafis ka dalbaa. marka ummadihii naga horreeyey toobadooda waxaa looga dhigaya shuruud inay ka dhex baxaan mujtamacan xun ee dhiigga ay ku dhex daadiyeen, oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan baa shardi looga dhigayay. marka waa min asbaabi istiqaama cala diin, qofku inuu diintiisa ku toosnaado oo ku sugnaado. labadaa bay culummadu shardi uga dhigaan, inuu iimaankaagu kaamil yahay. hadduu iimaankaagu kaamil yahay oo yaqiintaadu ay dhab noqoto, mujtamac kastood ku dhex jirto ku saamayni maayo, laanna qalbigaaga ayaa ka buuxa iimaan iyo alla kacabsi baa ka buuxa. mujtamacu ku saamayni maayaana waxaad noqonaysaa muumin baad noqonaysaa, xaalad walba ilaahay aaminsan oo ilaahay amarkiisa ku toosan. ta labaadna inaad diintaada ku toosnaataay ood ku dhaqantaa waxa sabab u noqon kara waa inaad heshaa mujtamac wanaagsan oo diinta ku dhaqmaya oo diinta danaynaya. maanta mujtamacyadeenna ka warranaan ku dhex noollahay, sigadaa diinku dhaqankeedee inta tukata iyo inta aanan tukan, inta tukata ayaa yar oo inta aanan tukan bay naga badan maanta. tawslaamaha xaafid walba waraysta, tuulo walba waraysta, magaalo walba qiyaasa dadka tukanaya, inta aanan tukan baa ka badan inta tukanaysa. iskadaa diinku dhaqankeedee. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum ilaa man yukhaalil. qofku saaxiibka ciddaad saaxiib ka dhigata diinta uu qaba unbaa diin adigana kuu noqonaysa, ee nin walooba ninkaad la saaxiib iska eeg buu rasuulku yidhi. bulshadu waa taas. bulshad wanaagsan haddaad hesho inaad wanaagsanaataa way suuragali. haddii laakiin bulshadda aad ku dhex nooshahay bulshad liidata oo cibaadadu ku yar tahay oo salaadu ku yar tahay oo fisqiga iyo fujuurka iyo macaasidu ku badan tahay haddaad ku dhex nooshahay waxaa suuragala inaad si wada noqoto adiguna marka dambe. dadkii soo hijrooday waxaa ka mid ahaa cubaydullah binu jaxshin, nin la odhan jiray zaynab binti jaxshin. waa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii xaas ka mida walaalkeed iyo xaaskiisii uu qabayoo la odhan jiray ramlata binti abi sufyaan. ramlata ibnata abi sufyaan aabbaheed wuxuu ahaa magaalada maka, caaqilka magaalada maka ama suldaanka magaalada maka ayuu ahaa. qoyska ugu laandheersan ee magaalada maka ugu tiro badan ee ugu tayada fiicanna way ka dhalatay. laakiin inay aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed inay ag joogto waxay ka fadishay inay iimaankaygiiyo diinteeda ay la hijrooto, oy kala hijrooto bilaad alshirki, ay u hijrooto waddan ay iimaankaygiiyo diinteeda xor ay ugu haysato. halka innaka dadkeennu maanta wadannada muslimiinta ay ka hijroonayaan, ay uga hijroonayaan maaragtaan ciyaalka ayaan tacliin la raadsanayaa, ciyaalka ayaan caafimaad la raadsanayaa, ciyaalka ayaan nabad la raadsanayaa, ciyaalka ayaan bariis la raadsanayaa. may waxaa diinta islaamka kuuma ogolo waddan muslima inaad ilmahaaga ka qaadataa oo waddan gaala aad u doonataa maciishad. diinta islaamka kuuma ogolo. diinta islaamku waxay ogoshahay wadannada maaragtaane gaalada ee iimaankaagiiyo diintaada dhaawacaya inaad kala soo hijrootaa ilmahaaga, ood u soo hijrootaa meesha aad isleedahay iimaankaagiiyo diintaada way ku xafidmaysaa inaad timaaday diinta islaamku ku ogoshahay. ramlata binti abi sufyaan ninkeedii cubaydullah binu jaxshin ayay la hijrootay ilaa iyo ardulxabasha. ardulxabasha markay yimaadeen malika najaashi baa soo dhoweeyey.
saxaabada rasuulka afhayeenkooga u hadlaayay wuxuu ahaa jacfar ibni abi taalib radiyallaahu canhu. deedna boqorkii wuxuu weydiiyey diinta islaamku maxay nebi ciise ka qabtaa. waxau ku dul akhriyey suuratu maryam buu ku dul akhriyey. ملك النجاشي للما كدادتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وقد جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين في سورة المائدة. إلهي جل وعلا واكا كغور رمي حالتي بقر كان النجاشي كتمدي مركي جعفر بن أبي طالب ودوشي سكو أخريي سورة مريم. suuratu maryam waxay ka warramaysaa ciisa bna maryam bay ka warramaysaa calayhi salaam. hooyadii maryamay ka warramaysaa. risaaladii nebi ciise loo dhiibay ka warramaysaa. shariicaddii nebi ciise loo dhiibay ka warramaysaa. ambiye fara badan bay ka warramaysaa. boqorkaa dushiisa markii suuradda lagu akhriyeyna lilmadaa ka daadato ilaahay waa kay noogu sheegay oo qur-aanka ayay maqlayaan. qur-aanka markay maqlaan indhahoogay lilmadu ka hoobanaysaa baa ilaahay yidhi. garashada ay garteen inuu yahay kalaamkii ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu yahay. markaasuu yidhi wallaahi kalaamkii nebi muuse afkiisa ka soo baxayey waa tawraad, iyo kalaamkii nebiyullaahi ciisa bna maryam afkiisa ka soo baxayo injiila iyo qur'aankaasi meel keliya ka soo wada baxeen waa waxyiga ilaahay buu yidhi. dhulkaygu waa dhul nabada, amni baad ku haysataan, cadaalad baad ku helaysaan, halkaa iska degay buuhi ku noolaad oo halkaa ilaahay ku caabuda. markaa aqal yar bay markaa qoys intii u wada socotayna aqal yar baa la siiyey dhisteen oo cariish bay dhisteen. gabadha ramlata binti abi sufyaan radiyallaahu canha habeennada ka mida waxay ku manaamtay ninkeedii oo suuraddiisii la bedilay. markaasay ku tidhi waryaa waxaan ku manaamay adoo suuraddaadii la bedile maxaa ka jira, sidee waxu jiraan? wuxuu yidhi waxaad aragtay waxba kama jiraan ee naga seexa buu ku yidhi. haddana habeen labaad bay ku manaamtay ninkeedii oo suuraddiisii la bedilay. markaabay ku tihi warrayadii baa igu soo noqotee see waxu jiraan ii sheeg. haddana habeen saddexaad bay ku manaamtay. markaabay isagiibaa runta sheegoo ku yidhi anu diintaydii waan bedilayoo diinta islaamka waan ka baxo diinta nasaaradaan galay buu ku yidhi. inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. ayaan darro weeyaan oo ayaan darane. ninka islaamnimo la soo hijrooday ee maka kala soo hijrooday iimaan iyo islaamnimada inuu badbaadsado ee ardalxabasha markuu yimidana fitnoobay. waa nas'al allah alcaafiya. ilaahay baan ka magan gallay inuu inankana na fidneeyo. mar walba ku ducayso yaa muqallib alquluubi habbit qalbii calaa diinik. uu bedelay diintiisii, uu ridoobay, islaamnimadii buu ka baxay. mar hadduu qofku diinta islaamka ilaahay siiyey uu ka baxo diin kaloo xaqoo adduunyada jirta ma jirta ogow. laa yasmacu bi axadu min hadihi اlummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuut walam yu'min biladii ursiltu bihi ilaa kaana min asxaabi الnaar buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. axad ummadda muxamed, axad ummaddayda ah ama yahuudi ha ahaada buu nebigu yidhi ama nasraani man ha ahaadee ima maqlo. hadduu i maqlo isagoo aniga aanani rumayn haddii ajashu ku timaadana kaasi naar buu ku dhacay buu rasuulku yidhi. diin islaam mar hadday adduunyada timiday wixii adduunka diina islaamnimada horteed jiray oo dhan diinta islaamku iyada masaxday ugu. saasoo markaa ninkaas uu ku noqday murtad, uu ridoobay isagoo shaarib alkhamriya oo ridoobo murtadoo diinta islaamka ka noqdeen ardulxabashu ku dhintaa la yidhi. ramla radiyallaahu canha deedna gurigeedii bay markaa iyadoo keligeed habeen madow halkaa ku seexataa aqal dhexdii. waddanka ay timidana dadka ku nool afkooga garani mayso. ninkii keliya wehelka ay ka dhiganaysay ee aabbaheed iyo dadkeega iyo ubadkeega iyo qaraabadeedii ay ka soo raacdayna ee wehelka u ahaana uu ka ridoobay. intuu ridoobay isagoo shaarib alkhamriya ayuu ardulxabasha ku dhintay baa la yidhi. keligeed bay markaa aqal dhex seexataa. waxaa taariikhda ku qoran habeennada ka mida waxay ku manaamtay dayaxa oo ka soo dhacay samada oo dhabteeda ku soo dhacay. ummu salama radiyallaahu canha
oo jamaacadda muhaajiriinta la socotay bay manaamkii u sheegtay oo ay tiri manaamkaa baan arkay bali cabira markaasay dumarkii la soo hijrooday waxay ku yiraahdeen wallaahi garan mayna waxaan u malaynaynaa nin sayid suldaan xaaqil boqor waxa bini aadanku darajaad iyo mansab adduunka dusheeda ay ku sheeganayaan nin ka wada darajad sareeya inuu zawj ku noqoni doono ayaan arintaasi u malaynaynaa dayaxa dhabtaada ku soo dhacay ayaan ku cabiraynaa bay ku yidhaahdeen riyada wanaagsan eed ku manaamtaa ilaahay xaggiisay ka ahaatay buu nebigu yidhi qofka aad isleedahay khayr baa ku tuhmayaabaa loo sheegaa waa wuxuu kugu cabiro qofkaasi weeyaan riyada xun ee hawaawigee naxdinta badan lana taa lama sheega buu nebigu yidhi shaydaan xaggiisay ka ahaato lama sheego waxna kaa qaadi mayso laakiin riyo wanaagsan baad ku riyootay oo farxad leh waxaad jeceshahay wax kaa farxiyey qofka aad isleedahay qofkaas uu kaa khayr badan yahay diintana aqoon buu kaaga leeyahay uu kaa aqoon fiican yahay waana kaa iimaan fiican yahay qofkaasaa loo tagaa manaamkaa baan arkay ii cabir baa la yidhahdaa waxuu kugu cabiran uu noqdaa bay culimmadu yidhahdeen riyada xun ee hawaawiga ee naxdinta leh adoo aqal kugu gubtay ama adoo gaadhi kula qallimay ama adoo diyaarad kula dhacday ama adoo aas ka qayb galay ama adigoo buka ama adigoo fool xun riyooyinkaa xunxun lama sheego waayo shaydaan bay ka ahaatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo habeenkii riyada noocaasa naxdintale markii lagu manaamee lasoo ambabareel la kaco waxaa sunno ah 3 jeer baa qandhuuf yar dhinaca midig baa laga tuufa xagga bidix ayaa naqas yar laga afuufaad acuudu bikalimaati illaahi taammaati min sharri maa khalaq deedna markaa jiifka dhinacaad u jiiftana waa la bedelaa buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam marka iyadu waxay ku manaamtay dayaxii oo samada ka soo dhacay oo dhabteeda ku soo dhacay waa riyo wanaagsan markaabay u sheegtay ummu salama radiyallaahu canha riyadii waxaa loogu cabiray nin mansabkiisa iyo darajadiisa waxaan ku qiyaasnay annagu aanan garanaynin ayaa zawj ku noqoni doona baa lagu yidhi yaa u noqday markaa zawj ma taqaanaan nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil baa u yimid oo ku yidhi rabbigaabaa ku soo salaamayey salaam baan rabbi kaaga wadaa waxaana lagu amrayaa inaad guursatid ramlata binta abi sufyaan gabadha ninkeedii ku weyday ardulxabasha ee ilaahay dartii ardulxabasha iyadoo muhaajirada u joogta ee keligeedna aqalka yaree cariishka dhex seexanaysa gabadhaasaa zawjad inaad ku noqoto lagu amree halkaa ka guurso ka mehersaa lagu yidhi deedna markaa buu nebigu soo diray markaa ergo boqorkii najaashi baa nebiga meherka ka bixiyey dadkii iyada la socdayna waxay ka dhex dooratay khaalid ibni saciid ay ku tidhi adigaa iga noqonaya bay ku tidhi maaragtaane weligayga adigaa iga noqonayo adaa dad iigu dhow taadna markaa bay noqotay ummulmu'miniin bay noqotay ummulmu'miniin radia allaahu canha ramlata binta abi sufyaan gabadh qiimo badan bay noqotay madiina ayaa nebiga loogu keenay calayhi salaatu wasalaam